rumaysan kartaa in ninkan uu afkiisa ku dhex qarin karo qasacad cabitaan ah oo dhan si toos ah ayuu u gelinayaa haddana wuu ku dhex wareejin karaa kani waa Francisco Domingo Joaquin ninka leh afka ugu ballaaran dunida haddii aad u malaynayso inuu saaxiibka uu af weyn yahay tusi muuqaalkan laakiin intaynu bilaabin muuqaalkan subscribe saar channelka si aad u aragto muujisooyinka xiga Francisco oo dhashay dalka Angola dunida ma aqoon jirin ilaa laga helay muuqaalo kooban oo YouTube-ka ah kuwaas oo gilgilay caalamka muuqaalkaas kadib kooxda baariyaasha ee Guinness World Record ayaa go'aansaday inay ninkan raadiyaan laakiin ma ahayn hawl fudud waxay ku qaadatay 2 sano oo baadigoob ah inay ka dhex raadiyaan tuulooyinka iyo magaalooyinka dalka Angola waxay rabeen inay xaqiijiyaan in waxa ay YouTube ku arkeen ay yihiin dhab iyo in kale markii ugu dambeyntii la helay dadka oo dhan waxay ka yaabeen waxa uu afkiisu sameyn karo Francisco wuxuu u safray magaalada Roma ee dalka Talyaaniga si uu uga qayb galo tartanka dadka afka waaweyn halkaas ayuu dunida ku tusay muujiso cajiib ah oo dadka dhan ka yaabisay afkiisu wuxuu kala bixi karaa ilaa 17 sentimitir taas waxay ka dhigan tahay inuu dibnaha ama af ku qarayo wajigiisa oo dhan wuxuu si fudud u guuleystay kaalinta koowaad ee adduunka isagoo noqday qof aan cidna la tartami karin marka ay timaado kala bixinta afka Francisco ma ahan qof sir lagu aamini karo waayo afkiisu wax walba waa ka weyn yihiin waa qof la yaab leh oo nolosha dhinaca baashaalka ah ka eegay isagoo caalamka tusay in xitaa waxyaabahan u aragno inaan dadka kale kaga duwanahay ay noqon karaan guul caalami ah haddaba daawade adigu ma leedahay hibo ama awood la yaab leh oo aad is leedahay waxaad kaga qaybgeli kartaa buugga dhacdooyinka adduunka ee Guinness World Record hana ilaawin inaad subscribe dhahdo si aad u seegin sheekooyinka xiga ee xiisaha leh